Warnimayahow yaanyadan maxaan ku sameeyaa dhirirkii ka badatay ilaa hadda guriga derbigiisa ay sii gaaraysaa kore saqafka kore hadda miro ayay dhashay waa kaas ubixii ii saartay mirihii bay saartay laakiin way iska koraysaa hadda aniga saqafkii guriga ayay ku dhowdahay ma jaraa way iska dheeraanaysaa dhirirkii ka badatay qaar waan raray oo xaggaasaan geeyey qaar kaana soo reebay laakiin way iska baxaysaa irkay ku socota bal waan arkayaa meeqa iiga soo bixi doonta bahashan suuqa qaaligii ka noqotay irkay isku shareertay kiiladii $4 $5 meelahaas kusii dhowda marka waxay u baahan tahay farsamooyin iyo loo sameeyo geedo loo dhiso waxaa laga yaabaa inay soo saarto miro badan bal qofkii abuuran lahay intaas meelood oo dhul haysta oo abuurta oo bahashan aan laga maarmin oo muhiimka ay dadku abuurtaan meel walba ku abuurtaan soo wax walba raqiis kama noqdeen yaa u baahnaa laha inay soo gataan suuqa soo kuma baarteen wax walba adduunkan waxaa waaye maskaxdaa lagaa cunaya ganacsi inaadan samaysan karin haddii aysan jirin lacagtii aad ku soo gada lahayd oo qofku uusan ba shaqaynin wuxuu ku soo gadanayaa soo kama fiicna qofkaasu inuu isagu abuurto oo inaad wax abuurto aad dhul haysata meel kasta aad ku abuuratid macnaha qarash badan iyo sheeko badan ma baahno dhulkaas iyo guriga meeshaad degan tahay iyo derbigaaga ku abuuro haddaa rabto ganacsi ku sameeya adugu gad shaqo ka dhigo wax walba oon cunayno adduunyadan waxaa wax la soo saaro oo dhulka ilaahay laga soo saaro waay dad oo nala mida ayaa soo saara waxaan la abuuri karin ma jiro wax kastoo la cuno waa la abuuraa dad baa abuura waa laga sii gataa dad kala kasii gata suuqay kugu keenaan kuwo kala kasii gata intaas oo dobel isii saaraya suuqa uga soo gadanay waxaa laga yaabaa yaanyadaas dadka abuuray ama beerahooda ay ka baxdo kiiladii inay ku gadaan ama loo xisaabiyo ka soo qaado waxaan dhammayn 5 cents oo dollar ka soo qaado 5 cents oo dollar nin baa ka soo gata 5 kaloo saarta 10 cents ay noqonaysa ninaa kasii gata 20 oo saar soo wato kii ugu dambeeya suuqa jumlada wuxuu keenayaa inuu $1 iba $2 gado midkii kasii qaatay $3 uu sii gado marka halkaas ayay kugu imaanay marka wax ka badan lacag 10 jibaarkeed iyadoo lasii dallacay ay kugu imaatay laakiin adigu haddaad abuurato waxyaala badanaa ku soo harayo oo dee lacagtaadi kaama qasaarayso marka waxaan nahay dad maskaxda laga haysto oo dhan walba loo gumaysto haddaan nahay dadka suuqaan yar wax ka soo gato oo suuqa wax yar ka soo gato oo wax yar ka ganacsada ama dadka cuna waxa dadka lacagta laga qaado canshuurta laga qaado oo dhibanaha waa dadka guriga degan oo cuntada karsanayo dadka xal ingiriiska iyo consumer dadka cunaya oo wixii cunaya waa dadka lacagta laga faa'iido sababta fakari maysid suuqaad aade cunta soo gadane waa karsane suuqaad aade cunta soo karsane waa laakiin meeqa qarash ayaa kaaga baxda aniga hadda sanadkii la soo dhaafay oo dhan abuuray wixii inta badan aan cunay waa abuurtay marka dhibaato weyn ayay iga hor istaagtay ayadoo maanta adduunyadan wax walba qaaliyoobeen waxaan kula talin lahay qof walba qofkii beerle inuu abuurto qofkii maaragtay
guri iyo meel le iyo derbi le iyo wax le inuu wax ku abuurto wax le abuur yaanya ka dhig basal ka dhig allahu mustacaan basbaas ka dhig wax yar oo qudaarta aad adeegsato maalin la arko ku abuur geli maxaa waa wax iska fudud ciyaalka bar dadka bar wax yar oo 10 mitir square ama 2 mitir haddaa haysato ama 1 mitir xataa ku abuur 2 geed 3 geed 5 geed ku abuur waraabi waxba kaaga soo baxaya waxyaalo badan ayaa laga yaabaa inaad ka faa'iido marka wax abuurano abuurku waxa aan cunayno waa wax la abuuray waxa aan cunayno kulli waa wax la abuuray ma jirto wax iska baxayo dhulka meel iska yaalo waa wax dad ay ka shaqeey marka khayr baa idin rajaynaya insha Allah beeru waa muhiim aan wax abuurano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh